This est pour moi. Je vis pour toi. Je vis pour moi. هلا صيع أصحابتا تياتركا خريستا maanta qof wiil imise gabadh kuraajo leh ayaan rabaa maanta meel laga dhaxlaya oo waxaa laga hadlay sheyga la dhaho jacaylka yaa kuraajo leh maanta waxaa la dhorta Soomaalidu jacaylka maba sheegtaan baa dharagooga hay waan ku salaam walaalkay maanta kuraajo qof yeeshaan rabaa oo jacaylkiisa dhabtanta ka soo sheega lambarka telefoonka halkaas soo dhigay waa challenge waay hala soo dhawaado challenge maanta meesha ku haya quruxo qof maanta waxaan rabaa waa challenge waxaan sameynaya qof jacaylkiisa maanta ka sheegtaa raba oo kuraajo leh Soomaalidu jacayl ma taqaan maalin kasta madaxna naga qaaday bal wiilkii mise gabadha la kuraajo leba maanta sugaya oo soo hadlo jacaylkiisa sheegto عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو دواله هذا الأوجرة إما مقلسين فرتيتو تاوي مقلسين صح عليكم السلام جعل ما بيقانا بيقولوا الكاس قفكي كراجة يا ربانيga challenge ma sameynaya wiilasha Soomaaliyeed jacayl ma yaqaan bara gabdhahuna waxay shod badan ma sheegan karaan baa leeyahay maxay ku dhacday kelmadaas ilaa waa su'aal is weydiiyo Soomaali weynay su'aashaas maanta la iskiin weydiinaya maxay ku dhacdaa leeyahay soo sheego marxaba kor isku soo qaad lambarka WhatsApp qoonay ku soo dul qoray meesha shaashada agtiis teetarka meesha wanay ku soo qoray qofka diyaar ha soo hadlo isoo kii jacayl maanta sheeganay gabadhaas jecelahay mise wiilk mise gabadh leh maanta wiilkaas jecelahay challenge way caawa Soomaalida jacayl taqaanay in kala wanaag ka tusaaway فريد isoo wactabe السلام عليكم السلام عليكم ما مقلي soo dhawaakay barnaamijka ku jirta oo malena oo faanta sax okay waxaan dhahay jacaylka nin walba kii kuraajahay jacaylkiisa ka soo hadlay ma ka soo hadli kartaa marxaba soo bandhigay maanta Fariid oo ku soo kacay been kuma sheegay maanta wiil Soomaaliya oo jacaylka kuraajo soo hadlay wallahi billahi Fariid baad tahay soo hadalhay laakiin waa magacaaga horta nimca la dhahaa aniga barasho wanaagsan walaalkay soo dhawo anigana Axmed baan la barasho wanaagsan hay soo dhawo walaalkay hay isu khadka waa liigu jiraa hay hadal min baa sheekeynay hay soo sheekay soo sheekay walaalkay okay waxaan dhaxday kulli dadku wax waa jeclaa soma beentaada ma Fariid 2014 صح anigoo joogo magaalada wadanka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Burco صح ما شاء الله ayaan goorta nin reer Soomaaliland hayo waa ku salaamay ما شاء الله soo dhawaad صح kadib kulli qofku markuu qulqulka nolosha ku jira uu nolosha wada waa uu dhalinyaro yahay waxyaabo badan buu sameeyaa soma صح waa runtaada adiga marka goob waxbarasho ku jira صح yaa de kulli waxa
isha waxaad ku aragtaa hay isha waxay aragtay goysaa soo ma nacam inan baan isheedu qac ku tiri maasha allah hay ish calaa jacayl kadib waxbaan baranayna goob meel kalaasaan ku jirno dee isbanaanaan garanayna laba ruuxoo meesha waxbarashadooda u wada yimi baan nahay sax sax kadib awoodda way yaraanaysaa leeday qofa inaad aqoono aad waxbarashada isku timaadeen oo aad ugu adkaanaysa sax dhantu dee habluna waa midday wanaagsan habluna qaar inan aad u qurux badan bay inanta aadka u quruxda badanna waxay taqaanaa dee kolley way ragga ka yaraa waxay aad korba u eegtaa qor sax markaa waxaan ahaa sidii yacni adigu libaax mukulaal eegiyo hoos u eegi sax kadib markaan goobtii waxbarashada ka baxay sax ayaan damcay inaan la hadlo sax kadib waa dabagalay ilaa cid kama aqoon meesha anna ku qariib baan ahaa qolka meesha wax ku wada baranayno dee dadka isugu yimi un baan ahay kadib waan dabagala kadib meel soo maqlaysa waa kuma kalaas ka hadal kadib meel adigu maktabaday gasho wax laga iibsado sax kadib waa ka dabagalay wixii ay iibsatay baa aniguna aan damcay wixii wax la mida inaan iibsado sida iyagu aan meesha na wax ka iibsado wixii markay iska iibsaday meeshii kasoo baxay baan inan dilaalan hay markaa way iga qaaday si wanaagsan bay ila hadashay maraan magacaaban ku yidhaha igu tolaa xamdi baa laydhaha hay waxaan ku yidhi xamdi kolley aniguna dee waa the first time aan ku arko annagoo maalinkii ka horreysay waxaan ku yidhi waxaan dhalinyarnimadu waa cajiib garanaysa inta lagu jiro dee aan hadalka kuu soo gaabiyo waan kaa helay waxay igu tiri dee soomaalidu indha kuga hadlo waa hooyay taabsii sooma waxaan indhahaygaa ku arkuun baan soo ayay soomaalidu sheegtaa udhe dabeetana waxay igu tiri idareensi waxaagaan arkay ilaa maanta dila kufanta maantaba ku odhan maayo waan ku aqbalay saan ku aqbalo wixii kadib waxaan ku yidhi muddo intee leeg baad dadku waa kala duwan yihin wax ku dareemi karaan adigu ugu yaraan waxay tii wiig gudihii igu tusanaaday jaashi kadib tijaabooyin badan bay iga qaaday tijaabooyinkii waxaa ka mid ah waxay igu tii maanta laga bilaabo markay meesha isugu nimaadno hayla hadl juuq ay odhan anna juuq ku odhan maayo kow waa talabaada lambarkeygaan ku siinayaa waa kaase kaa igala soo xidhiid markaad soo garaacayso aad wax iga doonaysana mobilka iga soo garaac kadib wiigii baan aniguna hadiyado waad ogtahay waxyaaba aad kale isugu jeclaado waxaa kamid ah hadiyadaad hadiyaday ka dambeyso meelaha yacni wax laga wada cuno yaan ugu yeershirisan wax uga wada cuno maalinkii ishuuka ay dhimisay marka wiigii sii dhamaanayay maalin ka baaxsanta
ayaan intaan warqadan qoray waan ku qoray yacni saan u jeclaa qofka dee qofba meel buu qofka ka jeclaadaa sooma qofbaa wejigaaga qofbaa jirkaaga qofbaa yacni aduu qofba dee si dee ruuxdiisu siday kuu jeclaato dee qofba sibuu qofka kale u jeclaanaya moogti kadib warqad baan intaan ku qoray baan ubax yarna dhex geliyey misaan deetana kaadoo ku xidhan kadib waan qaaday deetana iyadii baan u dhiibay kadib markaan u dhiibay ayaan ku dhihi go maanta oo maalinkiisu u keen dambeeyey waqtigii aad ii qabatay waxaan rajeynayaa markaad soo garaaci doonto sax waan ku garta sax in adigoo ay aqbalay inaad soo garaaci doonto wala adiga qiso fara badan baa martay maasha allah kadib way soo garaacday intay warqadii akhrisatay marka warqadda xagga dambe kaga qoray billah caleyk dee waqtigii intii u badneydna soo wada qaadanay waqtiyo badanna ku siiyey waxyaabo badanna kuu soo bandhigay dee aqbal wax ma garanaysa aamiin walaasha maasha allah aad iyo aad baad maaragtay storygaaga uga sheekeysay wiil fariidaa tahay maasha allah tabaaraka aad baad u mahadsantahay walaal markaa kolley wixii dee way waqtigaa noo kala sameyn waxay iyana iminka turki bay joogtaa imika yaa jeceshay gabadhaa jeceshay aw hadda hadda waa gabadh runtii wanaagsan oo journalist iyo hargeysa ku nool ayaan jeclaa hargeysa mataqaan ya hargeysa caasimadda somaliland waan aqaan hargeysa ma qof baa garan waaya bis soniga soomaalida kan soomaaliyeed asasha qaar baa ku dafiriyo ku odhanaya maba naqaanay mimi soomaalida is wada taqaana maxaa indhahaas kuu qabanay waxba indhahaas kuma qaban is wada naqaanay gobbaa tahay marka hadda hargeysa joogtaa laakiin kii hore caraf isku yeelan weyne laakiin imika waa journalist iyo hargeyso ana burcan jooga maasha allah walaalkii aad iyo aad baad u maasan tahay intaad qisadaada kasoo sheekaysay wiil fariidaa tahay oo geesi ah oo jaceylkiisa ay kasoo sheegtay maasha allah waxaan ku leeyahay giibkooda hore u siiso oo u khayr qaban ilaahay kula kalansiiyo wiilal kalaa soo wactamayay wiilashii kale haddana la hadlaya waa laga baxay khadka alla soomaalidu dhib badanaa waxay ga lahayn maanta o dhan ilmihii seexinaysaa ilmihii haysaa ilmihii seexinaysaa ya waaba hooyo ilma haysato waaba qurxe maahayna hooyo ilma haysato qurux soo maaha aab miyaa wiilal badan baa soo wactamay maasha allah oo kusoo ceshan karta wiilkuu ka baxay haddaad u jeedin telefoonka marka waa barnaamijkan waxaa waaye ogow qofka ku jecel baa la idhaahdaa waa barnaamij cusub oo hadda maxaa dhahaa reesow socioga kusoo biiray oo maxaa la dhahdaa hadda la wadi doono insha allah kusoo dhawaada oo barnaamij cusub waaye wiilkalaa soo galay wiilkan kale haddana wareysanayna allo asalaamu calaykum telefoonkaa ka go-ay wiilkan waa connectionkan u malaynaa allo wi asalaamu calaykum calaykum salaam waraag soo dhawow barnaamijku waa la socotaa soo ma halkaasna waa kasoo akrisay fariid adigo maarta hubkaaga sita marka waa soo gashaan umalayna hubkaana soo qaadata sax
asxaabtaada daawanaysa kala أنا sidoo kale aad iyo aad baan ku salaamay walaalkay soo dhawow Mr. qalmacad President furan waa way weji salaamay furan soo dhawow horta waxaa laga sheekeynayaa jacayl sababtee Soomaalidu inaga fartuus thank you walaashay hay inagu markay Soomaali nahay horta magaca walaal nicmo lagu yidhaahdo haa nicma la dhahaa barasho wanaagsan okay barasho wanaagsan walaalo anigana subeer baa la yidhaha walaalo barasho wanaagsan wanaagsan waa horta waxaan ku sheegayaa Soomaalidu ilaa maalinkii aan dhashay ayaan garaadsaday ayaan dee qof garaadkiisa wax kala garanayo noqday hay waxaa dhegeysanaya heesa Soomaaliya صح hees waliba heesta kale way kasii macaanta waa jacayl cilabahan Soomaalida ku arkay hay okay heesoodu waa jacayl haddii wax la jirayo oo kale jacayl baa lagu jiraa filimaantoodu waa jacayl adiga noloshooda boqolkiiba sideetan Soomaalida waxay iska dhigaan dad jacaylka wax ka yaqaana sax صح mid dee jacaylka qofna wax waa ka yaqaanaa qofna waxaa odhan karaa ma rabo inuu barto qofku laakiin hadduu ugu talagalo jacaylka inuu barto wuu baran karaa okay micnaha jacaylka horta Soomaalidu walaalo markay heesahooda iyo sugaantooda aad dhegeysato jacaylka ku dheexan صح kumana dhaqmaan صح runta ku sheegaya waan gartay waxaad arkaysaa dee qof wiil amba gabadh sheekaysta wuxuu ku odhanayaa inantaa waxaa sheekaysananay muddo usbuuca amba 2 usbuuca way isguursadeen oo la kala tegay waxaad arkaysaa wiilka odhanaya 4 sano aan sheekaysananay waan isweynay hay okay aragku iyo horta qof labada qof ayaa dhexeeya qof isku dirna waa la iswaayi karaayo kadib ma laho adduunka dadka isku jecel ba iswaayo waxaa wiya aadan baa iswaayo صح laakiin Soomaalida horta wax jacaylka la yidhaahdo waxaan aaminsanahay afka way ka yidhahdaan laakiin kuma dhaqmaan amba sida uu yahay ugama hadlaan horta jacaylkan loogu sheegay maxay ka dhigan tahay maxaa loo iqaana laakiin jacayl markaan ku weydiiyo maxaa u taqaanaa anigu jacayl hooyada iyo aabbahay oo jacaylkooda iga badan be hay wakaas jacayl haddii lagugu dhalin waxbaan kuu sheegaa jacayl haddii lagugu dhalin maba dhalateen soo maa damcan laakiin jacaylka Soomaalidu sidaynu dadka kale ee bini'aadamka amba ay bulshooyin kale caalamka صح laakiin kasoo gudub mawduucaan ayaynan gelin iyo halkaan fogeysay inaan gelin oo aynaan mawduuca ka bixin barnaamijkaan waxaan ku sheegayaa horta way dhalinyara baan ahay xaas mariyey nolola weli maan samaysan laakiin jacaylo fara badan nolol adiga qaabkasi ahaadaan waxa jacaylka u dhadhamin weyda nolol baaba samaysan dee markaaga hor waayo nolol haddaa samaysanna jacaylka waa dhadhamin lahay soo maa dee eg aan dhadhamiya ee jacaylka horta qofka ibni'aadanka ah inaad hesho somaa nolosha kula fahansamo jacayl kula samayn kara sax صح waay really sax hadda 2009 2009 for long time back hadda wax kasoo wareegay waxaan maleynayaa 12 years ago baan shukaansanaya dumar gabarba hadda kusoo qortay eeg gabarba komadal kusoo qortay waxay tiri jacaylku waa naar naarta may walaalo ilaahay naar kama dhigo naarta way walaalo naarta ilaahay baa samaysto dadka lacoyibu ku cadaabaya naar maahe laakiin way macnihii baynaa fahmin horta aan ku dhameeyo walaale dhegeyso ilaa jacaylku waa dareenka gabadhaasa soo qortay gabadhaas waa fariid faadimo uga qoran jacaylku waa runtada waa dareenka iyo isfahankaba waa runteeda jacaylku waa dareenka laakiin waxaan kuu sheegayaa walaalo jacaylka qofka waxaa ka midha dhaliya qofka u samra horta jacaylku samirka kama soo haro runtaan kuu sheegayaa صح jacaylku samriya baabax weeye ilaa up to now ilaa imaka anigu waxaan dumar baa shukaansanay ilaa 2009 ilaa imaka dumar baa shukaansanaya shukaansigaaga alloora markaas way badan tahay hadde horta dhegeyso horta aan ku dhameeya hadalkii anigoo taariikh baan kaaga sheekeynaya adigu wadankii halkee joogta horta ii sheeg halkee joogta ana hadda UK baan degnay walaal ya UK baan degnay UK soomaalida muqdisho maa ka timid hargeysa maa ka timaaday maya anu gobolka raggaan keena burcaan keena anu okay burcaa ka timaada okay gobolka raggaas
dhegeyso walaalo horta 2009 baan Hargeysa anigoo jooga oo wiil dhalinyaro ah aan aad u weyneyn ama waxaan dhiga jiray brevet maasha allah inan aad iyo aad u qurux badan baa brevet ka dhigata dumarkuna ragguna way jecel yihiin rag dumarka quruxda badan dumar qurux qorta quruxdu waa wejiga maaha dadka quruxda wejigay ma wadaan laakiin waa qalbiga qofka ninka qurux badnaa taas ogsan waxa la guursan laadahay sad weji u eegaysa naagii baa kala kacayba qofku qalbigiisa iyo kuma jirto ayuu dhinacyada marka halkaa marayso aad halkaa lugeynaysa anuu le qalbigaaga kuma jiro kuma aqaale quruxdaadaa jileecaya sax anuu maan ku aqaana halkaasaad lugeynaysaa de laakiin gabar qurux badan baa jeedkaaga soo jeedkaaga waa ugu qalbiga laakiin qalbigaaga anuna ilaa wuxuu ku weli kontakta weli markaa qalbigaaga ma sharax riyeli sax 2009 bay ahayd brevet baan dhigin jiray kulliga qofka reerkiisa uu garanaya ayagoo markaa wax yar baa hargeysa jooga wada sanadii baan joogaa burcaan ka yimid wiil yaro dhalinyaro aad baan u yaraa waade wax yar baan ahaa fikaas baan ugu ya yaaba kaagu dhaafaya khadkaaga xun mise waa xagaya mid telefoon baa kusoo dul dhacay dad baa ku daba jooga dina hore sheekada u dhamaysid wiilasha kale garab jooga inaad hadeegan dhiga nagala soo qabtay rabaan moogtahay dad badan ba khadka ku dhex jiro inaad soo qabtay rabaan waa soo qaadanaya waxba yaana kugu dheerayn hadalkee in yaro kasta oo bayda ka sheekeynaya jacaylka okay adiga waa inaan dib kusoo qabtay noqon maxaa dhahdaa kuwa kale haddaba hangasho qisada waan soo noqona because markasta waan soo gali rabaa ma fahanti aduna qisooyinka markaa ururinaysaa qisooyinka aniga youtube-kayga maxaa dhahdaa qisooyinka ku saabsan youtube youtube-kaaga ma arag laakiin insha allah waraa meeshaan nigu dul qoraya shaashadaan idinku dul qoraya inaad halkaa ku xusto ay walaalkay salaamahay qofkii kale ku xigaan ka qabanayna alo asalaamu calaykum alo soo dhawo walaalkay waa maqlaysaa saxaadka kaa xun helo waa laga dhacaa ku kala lasoo qaban haddana waa maqlaysaa helo wiyo salaamu calaykum salaamu calaykum ad maqlay walaalo soo dhawo walaalkay barnaamijka soo lama socotid wala socdaa barnaamijka hore oo geli doona insha allah dhammaan horta salaamaynta qolkooda jirto wiilan maxal gabdho sax ku maqlaa caadi ku maqlaa okay hay walaalkay soo dhawo warka soo daa aad iyo aad barnaamij wanaagsan waaye laakiin yani dad qof maxaa tiri qof walba sida asigu uu yahay ama jacaylku wuxuu ka aaminsan yahay yuusan soomaalida u wada saarin dadka inuu ku tilmaamay صح وارم اوكي قفل بالإله والبشية عقلي مسكح نعم عقلي مسكح وقفل بسيء اسكو مد معهم نعم خاصة أنا يقول شيء قبلها صوماليات هل تلاسين أبو فهد جعل كورت وانا لول وانا فرحت هاي لكن قرمو نقضى دي كورت ليس فهمه هو كسمنا نكون كرو wiilkii gabadha way shukaansanayaan gabadha waxay ka hadleen dabeecad aydan lahayn aysan ayada lahayn ka sheekeynay waxay leedahay aniga markaa guriga kuu tago sidaan baa kuu yeeli weligaa wax ma taabanaysid kan ma ka dhacaysid wiilkan wuxuu dhahaa anigana waxaa igu balan inaan lugaha kuu dhaqo baby banaanka markii la kala joogo صح laakiin markii guriga la yimaado nolosha xaqiiqda ah tan way ka adag tahay نعم laakiin maalinta marka run la isku sheego oo labada dad muslim aan ahdo dad manihin yani diin islaam baystaan nahay
muhiimadan wiilkii gabadha yani صح mar walba inay ka hadlaan wuxuu ilaahay la ogyahay aa muhiima نعم haddii markaas wiilka iyo gabadha qurux uu ku raaco oo inaysan dukan uusan ogeyn wiilkana gabadhana sidoo kale wiilka sixbag iyo xoogaa mashirinyaha manuura ay ku raacdo inuu dukado oo inuu ilaahay ka baqayo aysan ogeyn yani markay guri iskugu imaadaan xataa yani meesha alla ka furashaa jirto oo yani naxariis macaalayso gurigaas صح jacaylkana sidiisa labada qof markay ilaahay u dhow yihiin wuu caawinaa garab uu siinaa isfahamkoodana wuu wanaagsanaanaa magarad نعم dabcan ani single ahay ma dhahay nin xaas lahaa nahay maasha allah ما شاء الله degan noloshiisana ku faraxsan صح jacaylna ku guursaday صح ما شاء الله إلهي كو بركة laakiin waxaa xaqiiq ah wiilashii gabdhaha ani waxaan waana ahaan u siinaa intaadan guursanina ka hor wiilka aad jeclaanaysid dhinac diinka raaca iyo qaf akhlaaq iyo aadaab ما شاء الله quruxna ha ku raacin shidnaashana ha ku raacin قروح inuu wax horta haystanan ha ku horta raacin kaa dhex gala qurux horta kadar lama saarna kadar sooma taqaana waxaan oo sawirada lagu dhex rito gidaarada lagu dhadhajiyo waxaase kadar baa la sidaa dhahdaa quruxda kadar lama saarna inaadeero sax marka faa'iido muxuu taray hadduu qofku qurux baday adiga naftaada xog ku qabanin eesh faa'iida muxuu iga qabanaa horta abaay wahdaatan oo kuu sheeg waxaan ku dhahay dadka ilaahay masin waxaa laga yaabaa adigaygaagi inuu guud yahay inay noloshaada yani aad ku fikirto weligaa yaallaan inaa hesho qof wanaagsan yani adigana wadada saxda ha ku tuso waa arrintaada gabarna waxaa laga yaabaa inay raadiso wiil ay ku xarakooto ee wadada ku marto sax 5 ayaam kadib dabada la isku soo haraantina sax waxaa arkaysaa shalay sawirada ay soo saaraysay facebookeed iyo waxeeda inay ka disay waxaa leedahay silac ku nool soddon guursataa dhaabtay yani shalay adaa dadkan gacmaha la galay maxaa 40 ugu horgeed nolosha jacaylka dhabtaa raadi qof farxad ku siin kara raadi ilmaha yaryarka ah marka yani maanta cid aad u martiso oo ilmaha aad nanac wada siiso oo sax yani ilmaha naxariis aad tusto beri markaa guriga aad timaado way kuusoo kala cararaya been maaha taas waa runtaada ma in wax ilmahaasa ka garadaa caqli tahay yartaa adig may marka ani wiilka iyo gabadhaba waxaa dhihi lahaa dabcan nolosha dhabta ah waa naxariis iyo farxad iyo in qofka wuxu uu yahay aad ku aafiiriso nacam jaceyl ka hor inkastoo aan dad muslim nahay oo bacdal guur jaceylka dhabtiisa u imaanayo sax inta kale ka helitaan inay tahay laakiin jaceylkaaga jamle aad u qaadato oo yacni qurux iyo baashaal iyo laba maalnoo aad banaanka wareegtaan maqaayad aad fadhiisataan aad farxad ku aragto taas xaqiiq maaha nacam been maaha makhaayad yar lagu wareegayo labada cisho la islabisaya nolosha teeda mooda kale laakiin romaan noloshu teeda kale haddii hoos loo romaantiga eego sabir fara badan bay u baahan tahay wallaahi teeda kale abay romaantiga maysan bilaabin dadkan cadaanka ah ee aan ku daysanaa dhow sax ilaa waagii asxaabaha uu nabigeena allahuma salli calayhi calaa salaatu sayidina wasalaam maxamed uu xaaskiisa caawin jiray uu sax u naxariisan jiray yani laakiin annaga romantic si khaldana u aragna jidka la isku shubiyo habla isa siiyo taasaa u fasira waa yani run romantic lagu sheega inuu naagtiisa u naxariisto naagtan ninkeeda u naxariisato sax waa run kalgacayl ay istusaan sax waxaa arkaysaa gabar buurnoo 100 kiila wiil 30 kiila inuu aroos ay qaatee makhaankiga wadiiroodimaa sax marka ani waa ka baxay waa qofka xigisiin hay laakiin walaalkay waxaa dhihi lahaa soomaali oo dhan aad iyo aad baad u soomaali oo mahadsan dhan waxaa tahay dhihi lahaa Mm. guurkiina ka hor diiniyo isku raadsada waad maqlaysiin soomaaliya guurkiina kor diinihi isku raadsada layla dhahay asalaamu calaykum walaalkay soo dhawow halo Hello. asalaamu calaykum soo dhawow walaalkay Ah, soo dhawow walaalkay may maqlaysaa aad baan kuu maqlaa. hayay soo dhawow barnaamijka waa la socotaa ayaa adna maxaad ku darsanaysaa oo ogow qofka maxaa dhahdaa ogow qofka ku jecel qofka nacam aad jeceshayd inaad usoo bandhigtid qofka aad jeceshahay haddii aad xaas tahay haddii la shookaastani ma ogi ogow qofka ku jecel weyn lagala xaasid Barnaamijka waa la socdaa dhegeysanaya hadda muqdisho jooga waa dareemi kartaa nambarka sax
macnaha waxaa is leeyahay cawdo dhanna waa fiigsanaya dhalinyarta soomaalida waxay dhahaan jacaylka inuu yahay qurux inuu qurux ahayn qof kasta dareemi kartaa is leeyahay ay adu waxaa tiri qurux ma laha miyaa aniga qurux ma jirtaa is leeyahay qofku macnaha wanaagi qofka ugu xun hadduu xataa xushmad ama kalgacayl ama si walaaltinimo ama si koro lasu jeclaado way jirtaa laakiin hadda qurux hadda lagugu raacad adoo qurxoonta qurux ma lagu jeclaan karo aragtay gudaha nacam korka wareys quruxdii malaha haa quruxdii jirkaad ka hadlee ana qurux qalbi qurux inay qalbiga raxsanta aad baan filaya miya waxba maaha adiga nimka maxaa jeceshay gabar maa jeceshahay aniga hadda nin waxa ay reer leh reerkeyga aan joogaa maasha allah marka alxamdulilah gabadhan waa jeclahay ilaaha kuu barakee ilaaha kuu barakee walaalkay aad baad u mahadsan tahay acilena isleeyahay wax ka nac qaado maasha allah waa qof maxaa dhada ogeysiiyey gabadha uu jecel yahay waa nin kuraajale baad tahay ilaaha kuu barakee reerkaaga ubad hadalena allaha kuu barakee aamin anagana allahna barkee gabadhan allahna aamin walaalkay khayr baan kuu rajeynaya dalkiina hayo ayo walaalkay okay waryaa muxuudiin ninka ugu qoran yaa sheegaya ala Soomaali dib badana waraa dib badan idinla marna waa la soo cayta maxaa la soo caytamaysiin jacaylka dad ritaan ka soo sheegta qofkii raba jacaylka ma loogu talagalay maanta halo wiil salaamu calaykum walaalkay waan ku fiican walaalkay soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow barnaamijka waa la socotaa hayis maxaa ku darsanaysaa qofkaad jeceshahay xaasadaa leedahay gabar hadda la sheekeysatid ma ogi soo bandhigo runta horta barnaamijka aad orma socdo laakiin anigu waxa weeyaan barnaamijka waan garanaysaa lamarku ma arka waxaa sir bal soo qabo garanaysaa kule iyada ku sharaxi doonta ma garanaysaa halkay wax marayaan okay barnaamijka waxaa weeye ugu qofka ku jecel yaa la yidhaahdaa marka barnaamijka waa barnaamijka soo sameeyey qof walba wuxuu ka hadlayaa jacaylkiisa qofka uu jecel yahay hadduu la sheekaysan inuu jecel yahay oo bandhig waaye hadduu qabo naagtiisa siduu u jecel yahay waa qofka jacaylka inuu ka sheekeeya ma rabaa bis runtii aniga horta waxa weeyaan horta anigu alxamdulilah naag waa qabaa wadankii bay joogtaa maasha allah ilaah ku barakay addis ababa waxaan jeclahay muddo 2 sano ah sax layn baa magaranaysaa rabay inaan keeno oo xaggan inaan keeno adigu wadanka Yurub adigu ka mid ah sax kulli hadda lamarkan kala soo hadlayo kulli waad garanaysaa adigu waan gartaa marka muddo dheerna waa wada sheekaysanay haddana waa isguursanay oo iyadoo halkaa joogto weli aanan u tegin baa hawsheena dhamaysanay alxamdulilah sax weli iima suuragelin inaan macnaha aan keeno inkastoo processka sida uu kale ay u dhamaatay ilaahay sidan baa ka dhiman ma garat ilaahay ni fududay processka kuu socdo insha allah marka kulli dadku jecel walaahay dee waqti badan baa soo kala maraa marka gabadhaasi sometimes waxaana dhex maraa inay macnaha tidhaahdo anigii waxaan idhahdaa uniyo uma imanaya macnaha waxaan jeclahay inaan halkan aad adigu ii timaado sax marka waxa weeyaan arrinka meesha ku jira waxay tahay ayadii inay wadankii aan ugu imaado ma rabto anigiina waxaan jeclahay inaan magaranaysaa wadankii aan gaaro marka wadan wuxuu xiiso ku leeyahay baan magaranaysaa waxa weeyaan in muddada la iswaayo oo magaranaysaa la kala maqnaado oo marka kadib waxa weeyaan xiiso yeeshaa jacaylku waxa weeyaan ismaqnaanshahaas iyo iswaaga waxa weeyaan waqti uu qaataa waan karta walaalkay sax marka jacaylku waxa weeyaan waa kalsooni anigu gabadhaasi waxa weeyaan Facebook waa iska baranay waa is aaminay waa is guursanay ma garat marka wax walba waxaa ka muhiimsan kalsoonida iyo inaad ruuxa kalsooni aad ku qabto waa run horta kalsooniba hadduu jirin jacaylka maba yaalabo jacaylka dhan waa kalsoonida iyo isfahanka wey bis leh aad iyo aad marka waxaan leeyahay Soomaali waxa weeyaan hadday isjeclaanayso inay hal ruux ku ekaato sababtoo ah hal ruux baa jacayl laga helaa nacam anigu ruuxaas iga badan baa waxaan jeclahay inaan jacayl ka helo maalin maalmaha ka midna insha allah inaan ku guuleysto insha allah waa lagu soo duceynaya asxaabta meesha ku jirta usoo duceeya wiilkaasi gabadhiisa inuu ilaahay si khayr qabo ugu keeno oo walaalkiin waaye
waan kusoo duceyna walaalkay insha allah. waa mahadsantahay boqolkiiba boqol. marka waxaan leeyahay soomaaliya jacaylkooda noolaada meel walbo one love saluut adna sidoo kale waad mahadsantahay walaalkay, waad mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalkay. Thank you. Hay walaalkay mahadsantahay adiga waa sidoo kale waad mahadsantahan ku leenahay. waa ka aad iyo aad ilaahay si khayr qabtaa isku kenkeeno. amiin amiin aywa. asalaamu calaykum. asalaamu calaykum. soo dhow walaalkay. barnaamijka wala socotaa soo maa? haye ay maqlay hadal. haye walaalkay waan ku dhegeysanaya hadal. haye hadal. haye waan ku siinanaa waa adaan kuu fadhinaa meesha. waxaa waye barnaamijka qof walba maad aragtay ogow qofku jecel yahay weye. nacam gabar haddaad qabtid saa u jeceshidaan looga sheekaysid mise gabar haddaa la sheekaysatid oo jeceshihiin wuxuun wax jeceela inaad nagala hadashid baan kaa rabnaa. may maqlay haye kasoo hada walaalkay. xanuun miyaa? waa runtaada. haye sax walaalkay waan ku gartay. halkee joogtaa horta? halkee nagala soo hadlaysaa? halkee joogtaa? soomaali waa joogtaa? soomaali ma joogtaa? ha sax waaye. haye iska hadal waxbaa cabso. sax waaye. kuraajo fariis baa tahay nin kuraajo baan baa hadla mahayno. haye walaalkay. wiilka waa ka baxay uu yar cabsoodaan u malaynayaa barkee marka ugu horeysa waan u malayn inuu rabin uu ka sheekeeyo. wiilkalaan soo qabanaynaa. asalaamu calaykum. asalaamu calaykum. aboowiisa may maqlaysaa? alo aboowa khadka ma kaa xunaday? اوكي وارن حمدي cabdi walaahi xabiibtii jacaylku waa xanuun waa runtiisa wiilka siduu yiri. markaas ceeb maaha jacaylku qofku hadduu ku dhaco ceebna maa qof bini aadan haddii la wada jacaylku dadku dhan waa helaa ceeb maaha. marka barnaamijkan magacaawa kusoo jeediyay meesha waa ogow qofka ku jecel waaye. waa barnaamij cusub oo hadda youtube-kan kusoo biiriyey. hadduu ilaahay idhaahdo qofkii rabo maxaa la dhahdaa lambarka halkaasuu idin yaalaa. youtube-kana waa igu imaan karaa insha allah. halay soo booqdo hadduu ilaahay idhaahdo halkaasaan kasii wadayaa qofkii rabo oo dhan. soomaali weyne welcome weji furan gacan furan kusoo dhawaada. walaalkii may maqlay? halo abooy waxaa kaa xun khadka aad kaaga xun adiga ma ii maqlaysi soo ma? wiilka aad buu khadka uga xun inuu hadlo uu rabaa laakiin telefoonkii baaba ka xunba khadkiis. khadkaa ka xun.
waa kaas wiilkanaan soo gelinayna. asalaamu calaykum. waa maqlaysaa walaalkay? asalaamu calaykum. calaykum salaam. soo dhow walaalkay. barnaamijka waa la socotaa sax? si fiican aan kuu maqlaa mii maqashaa ade waan ku maqlaa walaalkay. kor isku soo qaad. walaalaha intanay kaa maqal daawanayaan. ma jiraa? haa maqal si fiican buu jiraa weliba. maya waan ku maqlaa si fiican aan kuu maqlaa. haye soo hadal haddaba adiga waxa la sugaba waa adiga. okay soo daa. haye waxaa la weydiinayaa barnaamijku ogow qofka ku jecel waaye teatarkiisa. markaas waxaan rabaa inaan ku weydiiyo nacam gabadhaa jeceshahay inaad noo sheegtid. qof kuraajada la rabaa mise haddaad xaas leedahay qof walba jecelkiisa in wax nooga sheego. alxamdulilah si fiican. maasha allah. soo dhawo. si fiican soo dhawo. ayaan kuu maqlaa. alxamdulilah waan qabaa horta. maasha allah. ilaah kuu barakeeyo. haye haye alxamdulilah ilaahay waa isiiyey. ilaah kuu barakeeyo. haye wad sheekada. okay hagaag yacni yacni hee halo abaan waan leeyahay. yaawna maxaa kugu dhacay? halo waan ku maqlaa abaayo. aboogiisa haye hadal adaan ku sugaynaa. maxaa kugu dhacay inaad naxaysinta waaban ku moodaya waabay naxee. may liina horta alxamdulilah waan qabaa horta. xaaskid qabtaa baa lagu yiri. laakiin hadda islama joogno. hayaa kii kaa oo joogtaa maad hadda kala islama tagteen? joogno. maad kala tagteen maad islaysan intay kaaga maqantay xaasku? may yani waxay joogtaa dalka Greega. Greega maxaa dhigay naagtaada? adnaa ka joogtaa? ani Jarmal. dee markaa Greega maxaad uga soo kaxay wad bil camal ay joogtaa. bil camal bay joogtaa aan ku dhaha. haye markaa maxaad uga soo kaxin weyday? sharci ma haysta miyaada jarmalka waad ku dhex fadhidaa? waan leeyahay alxamdulilah ilaahay waa isiiyey. dee haye markaas maxaad uga soo kaxin weyday islaantaada haddii Greega joogto? halo halleena waan ku maqlaa. walaalkay waxaan ku yiri Greega haddii joogto islaantaada adiga maxaa ku dhigay jarmalka oo islaantaada Greega uga doonan wey? liina horta midaa jirta. walaalkay haa liina midaa jirta. waan ku maqlayaa. haye horta qadka wuu lama codlaynaa kowdhe. maxaa la codeynaa? qadka hee xaggaaga miyaa ma aqaan waayo waan leeyahay. yacni hadda processa u socda. process wax la dhahayo maaragt. dhegeyso waan process ku maqlaa. Greega process baa uga socda. Greega joogtaa okay. Greega process baa uga socda. nacam faraha dhigatay halkaas ay joogaysa ilaa sharciga qaadanayso. adi ma soo qaadan kartid miyaa islaantaada? yacni Istanbul horta waan ugu tagay. haye dalka Istanbul maaragt. Greega Istanbul maxaa isku keenay? Greega ma joogto adiga imika laha? yacni ayada Istanbul to Greega. waan qabaa iyo ma qabo horta ii kala saar. walkii gabadhaas waan qabaa. okay Istanbul Greega noo sheegtay kow haddana imika waxaad tagtay Istanbul Greega dib usii dhaaftay haddana Istanbul baad tagtay meesha kale
oo africa laga أولا heli إدغسو waxay ahaaday muqdisho to istanbul waa beena waan fahmay imika may farama dhigan ilaa hadda haye marka adiga soo kaxayn kari weyda marka oo inaad soo kaxayso ma awoodi kari weyda islaantada maadaama gariiga inta buu noo jiraaye nacama awood baad u kari weyda inaad soo kaxaysid mise may kaxaynaysid bay ku dhahday maxaa dhacay ma jeclid miyaa naagtaada maya yacni hadda yacni waa u adkaaday waditaankii yacni waxaad arkaysaa dad badan okay u adkaaday waditaankiibaa adkaaday maya waxaan ku dhahay muqdisho to istanbul inaad yaroo dhegeyso muqdisho waad naga keentay muqdisho istanbul baad naga keentay istanbul waad naga kaxaysay waxaad nageysay gariiga sax okay markaad ka soo kaxaysay waxaad tiri gariiga hadda lagama soo kaxayn kara kaasay jooga saaba tiri sax صح سباسة صعبة ترمانو maya yacni hadda waxaan ku guda jiraa in aan yacni هي ورا أبوه maxaa khaldan hay managa waa lamsaacadan baa laga heesaa hadda waxaan ku guda jiraa baasabor u eg inaan raadiyo okay ilaahay soo keeno gabadhaada haddaad jeceshahay oo niyad u haysid oo maxaa la dhahdaa rabtid inay kuu timaado ilaahay nusoo keenkeena rajeynaa insha allah soo maa hor usoo duceeyo wiilkaas inuu gabadha ilaahay u keeno aamin inuu ilaahay iisoo fududeeyo iisoo duceeyo usoo fududay ilaahay usoo duceeyo salaamo uu baxay wiilkii khalaas ayaa kala ninka soo galay الله أكبر جنيدة حبيبتي وارون أنا يا وكل هذا ويلك من علي ملا أرقى كل مقدشون بيجا طورا كل جريجا بيجو سوء عشاء كل مقدشون بدي بيجو عشاء كل جريجا استغفر الله العظيم والله داعب نقص العظيم wayniga arkaya waxa kale noo soo galaan suganaa insha allah yaa sanaga meel kaliya ku noqnoqonay maaha muqdisho 10 jeer ku noqono 10 jeer waxaan ku noqnoqonay meeshii kale maxaa dhada gariigi ninkan waan wareystay saaxiibay ma fahanti كلينك صوق عليها صوق له السلام عليكم صودا ولا الكي وعليكم السلام يورو على الفتح خير ولا الكي صودا هو يا خير بقى عصب صودا هو برنامج ولا سعدا صدو السعدا وادو جيدا محل هذا وهو قفل كل جعلواي يا maxaa tiroona caadi xasuus hore xasuus dhow baa dad gashinta baa lagugu soo dhaweynaya haye soo dhawow wadaba xasuus haddaad gashina doonta xasuustan galina doonta jacaylkan yara waa inaad ka wada saartid dadka waxaa dha qalbigii waa wada adkaaday wax lagu qaboojiye mugdoonta haday kacdo wax qaboojiyaa rabaa mugta waxaa talaa maxaa tiri doonta haday kacdaada xasuusi waay haddaa gala ma aragtay caad baxir baa noo taabantay koleyba maad aragtay waxaa la yidhi jacaylku maxaa la ahdaay haddii qof walba doon uu leeyahay qof walba story moogtahay qof story aanan lahayn ma jirto adduunkan صح وين قرتها اي
toban sano ka hor 10 sano ka hor baa hadda imika waxba ma jeclin mise waxba ma guursan 10 sano waaba lasoo dhaafay hadda weli mugeen adeer ma hadda qurbaa iska jooga qurbahaas iska joogaan laakiin waagii barsamaadkii Soomaaliya la joogay iskuulada la aadi jiray gabar yar oo iskuulka iska geli jirnay oo isku fasal ahayn maana hay ayaa shaqal soo qaadeen adeer jacayl bas ku qaadeen hay aad galaas ka iska geli jirnay ma hoos baa ka soo bilaabay meelihii la isku bartay mise jacaylkii ilaa meesha ku dambeeyay ana waxaan rabaa qofka hadda macam jacayl hadda joogaan rabaa haddii maaragtay jacayl hadda joogo oo kale ilaa 10 sano wixii hore waa soo dhamaaday soo ma suwaan de kaasoo history Soomaaliya waxa artaa nolol hadda laba qof isla nool camal arta miya meedi nacam hadda dad xitaa isla soo kaansoos jacayl baa jirto weli naxan nolosha weli isla wadaagin oonan isguursan jacayl hadda la wada saarsaaran yahay oo kale iska jirto markaasna way soo mareen laakiin hadda midkoo gaagabay hadda midkoo isku jirayo laakiin saas ma dheero hadda maadaama laga fi aniga qurbaa iska joogo iyadana meel kale deginta ma aragtaa laakiin sidii amta qaro baan ku xumacay marka isla joogay malabbiya laakiin qofka dheer ma arkin oo telefoonkaas cawdan ugu hadlaysayo isma arkaysin oo wuxuu ku sugan yahay labada lagama warqabo moqto hay jacaylka maxaad ka taqaanaa bal noo soo sheeg jacaylku aniga waxa ka qaarbisin oo macaan yahay qof fahmada noloshiisa laba qof oo isfahmi karto taqaanaa horumar diriga gaarayo waxa uu ku aaminsanahay inuu aad u wacan yahay صح marka wallahi saas baa ka aaminsanaa nin hore shacir ugu soo dhacayna waa hayo oday hore soo qofayna waa mugti waa caadi ku fitaanka qof kasta waa ku fikira dhib ma jirto caadiga marka shacirku uu macaan yahay hadii lagu wado waa laakiin hadii mataqaana qorso hadii meel kale iyo luqluq kale oo jira maaragta صح horta ma macana laakiin markii lagu wado mataqaana qof isfahmi kartin hawsha labadiina daacad ka tahay maaragta waa runtaada horta markaas macaan yahay baalka fariid laakiin qofna hadii tahay baby cash hada maqshamta baby cash iyo baby love hada maqshan maaragta markaas jacayl lama dhaho waa lagu socdo baby raashin ka soo qaadi lagu dhaho maaragta صح laakiin qof iyo markaas fahantii labadiina jacaylku ka dhab yahay qof kale u naxayo qof kale la walwalayo isla qabsi markii dhacdo maaragta ayuu baarku macaan yahay moogteenadeer صح waa runta horta jacaylku waa isfahanka labada qof haddii isfahmaan wax ka lumaya ma jirto jacaylkuba waa isfahanka way suurada waa xagaas suuradaha laba qof haddii isjecel si dhab isku jecel horumar way gaaraan صح noloshuna dee markaasi waxay macaan leedahay laakiin qof hadduu laqdamo wado qof kale jecel lahay adduunka inkastoo qofka shacaysa qof kale sii jecel yahay maaragta waa iska diinta moogta laakiin jacaylku waxa ka aaminsanay maaragta nolol macaan dilugula dhadhiminaya dee insha allah ilaa wax khayr qabo oo jacayl allah kula xunsiyo waa iska heli doontaa tuku jeclaato ku daadahayso oo babyda ku haysa halka horiyo dhag kula tiraa saas life baalka marka soo kasho waaba ruuxan bay qaadabeen adeere maasha allah insha allah waan kuu ducaa walaalkii wada heli doontaa gabadh oo raaliya oo ood ku degtid oo maasha allah insha allah waa rajeynaya ducada xagga ducada maxaa la dadka shacabkan ducada soo badeen odayga miskiinka ducada loo soo badeen walaalkii hay habeen wanaagsan khayr baan ku rajeynaya hay walaal